yaa January 22 1900 January bisha koowaad ee sanadka miilaadiga 22 ayaa waxaa warqad qoray odayaashii reer ogaadeen. saddex qaybood baa warqada laga qoray. qayb waxaa laga qoray Dirdhabo 15 madax iyo culimo ayaa saxiixday. qaybna waxaa laga qoray Jigjiga 2 saxiixday oday iyo sheekhyadii iyo garaad suldaanadii. qaybta kale intii u badnayd ee dadkana waxaa saxiixday 12 culimo iyo ugaasi isugu jira. ragga warqadaha maalinkaa saxiixay waxaa ka mid ahaa warqadda waxaa loo diray League of Nationka iyo Super Powerskii lagu diidayo qorshaha ay keeneen ee Ethiopia la raacinaya ogaadenyada ah ay ku diideen. odayaashii saxiixay warqadaas waxaa laga yaabaa iyada oo qoran inaad aragtiin inaan idin iskaan garayno yaan insha Allah rajaynaynaa. waxaa ragga ku saxiixan ka mid ah kow ugaas Maxamed ugaas Xaashi, garaad Maqtal ugaas garaad Maqtal garaad Daahir, ugaas Maxamed ugaas Siigaale waa Mashkooke, ugaas Cabdullaahi ugaas Yaasiin oo wada garanaysaan, ugaas Xasan Dhicis Cabdi Cumar oo aad garanaysaan, Mukhtaar ugaas Maxamed oo aad garanaysaan waa ugaas Mukhtaar ugaas Maxamed Cumar, Sheekh Axmed Nuur Sheekh Yuusuf Dubad oo aad garanaysaan, Sheekh Maxamed Xaaji Xuseen waa Sheekh Xariir oo aad garanaysaan, Xasan Sheekh Cabdulle waa Xasan Sheekh aad wada garanaysaan oo waaga dhawada Xasan Cabdulle Xasan, Suldaan Duulane Suldaan Rafle oo wada garanaysiin isna, Sheekh Aadan Warsame waad garanaysaan waa Sheekh Aadan Yare waxaad ku garanaysaa Sheekh Cabdinaasir aabihii weeye, iyo Sheekh Cali Suufi ood wada garanaysaan. raggaa hadda dadka waxgaradka ee ummadda reer ogaadanya ahaan jiray intaasi waxa ay ka ahaayeen xilligaa iyo dalka iyo ummadda waxay ka ahaayeen waad garan karaysaan. waxay ahaayeen ahlulxaq ahlulxaql walcaqd, kuwa waxna xalliya waxna ka xidhmaan ee ummaddaasi lahayd bay ahaayeen. warqaddaa markii ay qoreen